وبركاته داوديال كلنتي وعن wanaagsan barnaamijka xog waran aanu idinka soo tabino dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaanu maanta ka soo qaadanaa waxyaabaha ka taagan dalkii balsaati caawa barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa oo lagu martiyay xarunta telefishinka qaranka Soomaaliland oo Saciid Kabare Diiriye iyo Cabdi Cali Madar oo ah odayaasha waaweyn ee ku dhaqan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ka soo jeeda Soomaaliland iyagoo caawan ugu soo buuqday xarunta TV-ga qaranka ugu horeyn waxaanu barnaamijku halkiisu waxa weeye Soomaaliland xagee ku socota maxaase u kordhay intii uu hayay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ugu horeyn waxaan ku horeysin doonaa Saciid Kabare Diiriye Saciid marxaba waxaan idinka mahad celinayaa xarunta aad nagu soo booqateen telefishinka qaranka soo waa dhowey waana mahadsantahay okay Saciid ugu horeyn haddaan ku weydiiyo barnaamijkeenu waxa weeye maxaa u kordhay intii xukuumaddan talada haysa ee Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ee kulmiye horumarinta la basmasay iyo ballanqaadadii ay qaadi jirtay marka ka dhabaysay kama dhabin way barnaamijkeena dhigeeyo dalkeena waa ka timid oo ku soo noqotay dalka kan warbixin kooban naga sii horta dalkii waa ka yimid dhawaan waana lagu wanaagsan aad baa loogu fiicnaa marka la leeyahay aad baa loogu fiicnaa dalku wuu wanaagsanaa kulley waxaa lagu qiimeynaya hasta nabadgelyada oo kale sida inaan abaari ka jirin ee ay ahayd barwaaqo uu ahaa in xoolaha si wax loo iibsanayay in iyada oo nolosha xagga nolosha ummaddu ay tahay nin iyo waagi haddana wax dhibaato ah oo weyn oo ka jira aanu jirin sidaa darteed dalku aad u wanaagsan haddii aan usoo laabto maxaa dalka u kordhay intii xukuumadda Siiraanyo ay haysay waddanka dabcan kulmiye markii uu tartamayay ee uu madaxnimada inuu dalka hogaamiyo u tartamayay buug buu qoray ay ku taalay waxa uu qaban doono wixii uu qaban doono waxaa markaa la isweydiin karaa wixii uu ku ololeynayay uu tartanka ku gelayay kulmiye ma kaga dhabeeyey mise kama dhaben okay waan usoo noqon doonaa su-aashaadaas oo noofta Cabdi Cali Madar waxaanu kaga mahad celinaa xarunta TV-ga qaranka nagu soo booqatay Cabdi waxaa tahay odayaasha waaweyn ee dalkan boqortooyada Sacuudi Arabiya ku nool in badanna Somaliland ilaa halkankii waxaa kamid tahay nabadgelyo gudaha taariikhda Somaliland horumar intee leeg bay Somaliland ku tallaabsatay ma la odhan karaa si xukuumadda tan kulmiye intay qabatay intii xilka hoggaanka dalka haysay horumar bay gaarsiisay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرك بوريسا. ورتا الأغنية يرتب بعيني. دعاء كل بعيني وحوي تمرك بوريسا. تلكيني يعني تلماتي شو أنت قلت إلهي إنه رجي. أنت وعن سدافع يعني ورتا. عبد علي خان مركز ليه. هي أن دولة كلها لنا وعن قوة دي كذا دي أمانتها إلى ذي توشي بس هو عن قوة رسمية Somaliland إلى ينتبه سيراي ويشايين بلغات كيسي وبلغاتي وحن ركعة وبلغات وحن نقطة هو يستمر يدور في سنة كان يقول قوي يحرر قوي ولا صفر يعني هو حنا شيء وحوي بلغات كيسي intuu u ballanqaaday in ka badan buu sameeyey haddii maanta la eegana waxyaabuu sameeyey yani lama taban karo waxa badan qiimaha leh maanta haddii leedkeeda leeyahay uu siinay ku tabaarsan marka laga soo bilaabo lacagtii qiimaheeda uu bedeli marka laga xisiyaa haddii leedkeeda ciidamada dalxiis uu siiyey marka maanta haddii leedkeeda tan dambeysay
magaalada burco iyo gaabo wadadii isku xidhaysay shirka u dhig cid walba waa inaad oo dadkan iskama dayno soomaaliya dadkan meela kala jiro dowladaha adduunya jiraabada la yaalo dadka foqorka ee waxba haystaan masaakiinta intaas boqoloo dhinacooda kilomitro wadaa samaynaysa shabayi taasaabaa wax horta wax loo dhigaba aan la heliyo marka waxaan leeyahay silayo dowladdiisu waa wanaagsan tahay ilaa in hala noqoto si wanaagsan ugu wada dadka haddii layinkada leeyahay dee mucaaradka ee haddii makadida waynu soo noqon doonaa mucaaradka iyagana waan ka hadli doonaa sicid waxaad carabka ku dhufatay waxaad tiri xukuumaddan kulmiye markay mucaaradka ahayd buug bay soo qortay ballanqaadiyay qaaday ballanqaadyada qaadaha waa run buug bay soo qortay ma kaga dhamaysa mise kaman maxaase kamid a buug qortay xusbiga kulmiye markii uu ololeynayay waxyaabaha uu ku ololeynayay ee uu dadka kusoo jiitay waxaa kamid ahaa sida nabadgelyada oo u adkeeyo sida iskuullada oo uu ka dhigo bilaash sida lacagtii giibaarka ahayd ee bariga burco oo uu bedelo gobolada bariga gobolada bariga dowladdii riyaal 2002 ayay bilowday inay jira waa maalin walba sanad walba ay gelin jirtay maxay tahay budgetka oo aanay runtii haddana waxba ka qaban sida shaqaalaha oo lacagta loo kordhiyo oo ay markii hore ku ololeyn jirtay 3% baanu kordhinayna laakiin ay 100% kordhisay sida maxay ahayd wadooyinka oo ay wax ka qabatay sida airportada oo ay maxay ahayd ay wax weyn ka samaysay sida dekedaha sida biyo gelinta oo ay biyo badan haddii alla ka dhigayo ceelal badan ay qotay sida maxay ahayd caafimaadka oo ilaa tuulo kasta oo war oo kastaba ay u gaadhsiisay adeega bulshada masalan degmooyinka oo dhani sida aan imanka kusoo arkay daldhawada aan tegey degmo waliba waxay ahayd gaari ambalaas oo xarunteedii baa laga sameeyey marka waxaa la isweydiin karaa oo qof war oo caawi dhegaysanaya oo isweydiin karaa ballanqaadyadii uu kulmiyey berigii uu ololeynayay uu ballan qaaday ma kaga dhameeyey mise kagama dhamay aniga waxaan qabaa inuu kaga dhameeyey bumbuunin maayo ma odhanayo waxyaabo ka badan oo ka siyaada ayuu sameeyo dee awoodeenuba intaa inama gaadhsiin karto inaynu wax walba samayno marka waxaad leedahay ballanqaadyadii laakiin waxa weeyaan oo su-aasha meesha taale ee isweydiinta lahaa qof waliba inuu isweydiiyo ay tahay war xusbigu wixii uu ku ballan qaaday markuu ololaha ku jiray ma kaga dhameeyey mise kagama dhamay haddii wuxuu adheena dee waa sii socdaado intaaba maalin walba tallaabaa la qaadaya waxaad leedahay uu dhamaystiray ballanqaadkii uu qaaday wuxuu buuggu soo qoray uu dhamaystiray waa kolley anigu intii aan ka akriyey uu dhamaystiray kolley intii aan ka akriyey in aan wax ka qaban ma garanayo okay cabdi haddaan kusoo noqono adiga siciidba waxaad ku raacdeen in uu kulmiye xukuumaddan kulmiye ay wax badan dalka ka qabatay wixii ay ku ballan qaadeen wax ka badan aba ay samaysay waqtina u aarsan yahay weli waxaa jirta xusbiyada mucaaradka aad afka dhuftay waxay sheegeen dhaliilo badan bay xukuumadda usoo jeedeen maxaa jirta dhaliilada badan haddii ay xukuumadda ballanqaadka ay qaaday ay ballan qaaday dhaliilahani mar uu soo jeediyay maxaad dhaliilo horta waa farbadiyey laakiin anigu waxaa horta ka doorbidi lahaa hor nimankan ruuxku wax dhaliilayo dhaliisha sheegayana waa badan tahay waxyaabaha faraha badan lehe wasiiraha ay qabtay ama mashruucyada faraha badan lehe meel walba ah waayo anigu waxaan arkaa mararka qaarkood dhulan anigu aan aqaano noqon u leeyahay oo haddii meel midagayan hal ciid ma jigi jirin oo dhaktara la geyn jiray haddii ladakeda waxbarashada la geyn jiray oo fog ay waxbarashada iyo haddii ladakeda leeyahay maxamud caafimaad fog okay waxaa kamid ah bariga galbeedku waa leeyahay bari ahaan haddii la eego barbara marka laga tago dhul badan oo dariiq amari jiray ilaa iyo maxaa qabtay baashi ayuu caafimaad iyo garsi marka socosho meelaha meesha la yado hurmuun ilaa iyo inta udhaxaysa dhul badan garnay oo maxaa quratay dhul badan
استيش بلا يسمي سكول يسمي ولا بدك والعلمتي كان بالك هذه اللي كذا مثلا يصير عياد اللي كذا اللي ما عنده كذا لا بدأ كذا واحد بدأ يطلع الناس وانقرنا عيدوا هذا كل شيء يوسف مرشين ما ترى واحد هذه اللي كذا كل عند الحكومة خيرات لك كتير ولا تجي وهذا البستود اللي يسمي والدكتور اللي جي وأصله أي شيء ما كان معارض كودريشن أي سوتش الدنيا معارض ثاني بهم بس يعد لي وحوي مع البرادة لما كان معارض هورتها أبي معارض هورتها نوعون قرية تذكرت واحد مشكلة ده أنا أبدي كده اللي يقولون ده أكل الصعود الله من المحبة هي كيف كنت راعيسه كان اللي بعد بالي أنا بقول بحاجة وأترك ولكني تذكر له مرجع وحلا تذكر الدين يوم يسكن متخلع يعني سوى عيب أنت بدل بصرة لكن تذكر إنه قال كي البحايا دي كذا وكان قليل وكان قريب قال ده وش قال عندنا عمرتي معارضة دي واحد وحاولت يا بقى الروح أنا الله ما يكهنا وحكف علينا سيراي يقول إن لو جيني معي هدي يقول لي سادي كذا اللي أنا ما ترى ده لو بخو بروحي عقب على يبا ميسك الرسول قال واحد وحسن كذي وحن واحد بدلوي ما حي واحد ما تكلم مركاني واحد اللي كقول لي واحد وإنتوا إنه كرفون كاتو ودي كذا يا كوزي كذي صوت تبوح على عليه وطول مفاهمة ما فرق أوكي. تتروى ولا تضدي كذا اللي يرسل من اللندرة. أنا عن دور لها. والبتاعي اللي تلاقي بدلو. وذي يقولوا اسمه لو تبغى هدي واحد اللي يشيله. تلا لا حطوا له واحد معي واحد سبعة في كذا معي سير يشيله. ويو. لما كانوا يحطوا حوالك يا بقى يبغوا أفتي الله معه. ثم يبقوا بالله هدي اللي وذي واحد راسه يشيله يسول ويدي. يسول الله هذا. أنا أسأله. مركا واحد صدق والعارف يمين. مركا أخذ كي الله قاضي وقرط على بليو سأسألون هالوان كذا يقول دعاء الله بطريق. حتى لو عويه أنكي بعده هذا من بيته يروح كهذا وصلت شهرين بعد. ورسك اللي دوري لو تعيني قلت له بلي ده له بلي ما نعي. مركا تعالى تبع أنا أسوي وعلى إيه؟ أنواع معارض عن الله وارتاحوا عن كل بدنا يجوا ما ضاهي ذيك كلها توينا. ومعيش لا يدي وحشرة دي وعي جرا لقراه ولا يروح أي واحد صار كويس أنا معاه سبعي. أوكي. سعيد سؤال شن عبدي ودي هذا سكر فوق القدر كي أي تصور مغطي ما نلوي بعد كذا وتقدر كذا بعد بقصة مغطي. وحنا شيء حسبي كل مية وحسكر على إن وكل بيه بلنقات كي وقادم وجي وكان بين كل وإنك بعد نقطي وقتنا وارسين واحد يتحس بيه المعارض كان إن أي دليل أمور سوتشيدين ومدة دليلها أي سوتشيدين هي محادر كي وقتين محاد كلا صعدة محاس شراء حسمك شراء هذا صفوبي. هرت مركب وهريسة واحد سويدين حكومة شعب محل حكومة والباهية حكومة واجب كذا محلي هرت ضد مركب وهريسة إنه سلاك كلا فهمها ونحسن شعب حكومته وجبها هي أديك بالشد أديك بالشد محوية أديك بالشد وحويه وحيابها منك كهرباء سيدا بيها أو كره سيدا عافماتك سيدا تعليمتك سيدا محي ودويك سيدا محي وحيابها نوع عاصر أي أديك بالشد هرت مركو الرئيسة شعب وحكومة وجبهين أما تنا نقطة أما بدي من دون تنا نقطة أما تيجوا يهرب عن نقطة وأديك بالشيء وحشعب وجبهين مركا وحيس ويدين لا أديك بالشدة حسب يعني ما قبت النساء ما خبر أوكي تا أنت أسمع كم كل دافو دولة الواجب كذي ما قدرت تمسك ما قدرت أما تنا نقطة تاني ما كتشوفته مركا أنت كل دافو حسبية لا أنت تحيي ويديسه ورث مركا هو رئيس حسبية وحسبية دين وأنا حسبية قرار مدحت البناء والسلام هل كبينوي ما دام شارية دوان بسوق وينا قادم السلام يا عبد الرحمن هرو يو جمال علي حسين يو فيصل وقادم يو إدارة دولة قادم السلام يا
laakiin mushkiladda meesha taalla waxa weeye anigu markii aan imaajin gareeyey aan qiyaasay waxaad moodaa soomaalidu waxay uma in rag caday markay tv-ga soo fadhiistaan in cada ka muuqato mararka qaarkood ragga qaarkii oo ama shaqsinimo nacayba ama maxay ahayd toy qofku markaa diidan yahay ama kooxuu diidan yahay inuu isayn kari waayo soomaalida wax ku maamaada hadalku intii urkaa ku jiro amaanadaay marka dhaliisha anigu waxaan u arkaa inay dhaliishaasi tii loo baahnaa aanay ahay waayo inay ku kasbaan baa la doonaya shacabka hadal wanaagsan oo macaan laakiin dhaliisha marka ay sheegaan de waa la qiimeynayaa oo marka la qiimeeyo meesha haddaanay ool waa lagaga cararaya waa lagaga fogaanaya hadday wax meesha ku jiraan yihiin hadee dawladdii dad bay ku kasbayaan okay haddaan soo noqdo cabdi ugu horeyntii somaliland waxay jirtaa 23 sano 23 sano oo somaliland jirtay mar walba horumar bay gaadhiso marba way soconayso afar madaxweynaha somaliland isu kala bedelay si dimuqraadiya isu kala bedelay somaliland horumarka ay ku socoto see wada aragtaa si xawliga yani tafaasiilaas oo soo kordhiya horta somaliland markaad runta doonayso intaasoo sanadooda ay jirtay de horta anigu waxaan odhan karaa ilaa maalin walba horta intaa loo kordhay talaba soomaaliya haddana waxa weeyaan dee wakti kula adag adagna waynu kasoo gudub isku saboo dootaa maanta u siinayo hogaaminayo waa tii ugu dambeysay taasaanaan odhan karaa anigu maanta haddii idinkadiya markan runahaan la eego waxqabadka ugu yaada tii wax qabatay ee maanta haddii idinkii dadku dhul badan haddii la xukmaayo tilmahaan aan joogina u arko ka arko ka jooganayba dee joogayo og yahay dawladdaasu wax badan bay qabatay weliba anigu waxaan odhan karaa waxay qabatay waxa weeye xawli inta doonaya weliba ka dheereeyey oo ka badan bay qabatay dawladdoona waxba haysanin oo haddii maadhowda waxaan la hadlayay nin berberi joogo berberi joogo ku maahuda weyn wadaa ayaantii la sira wadada lahaa qaadhaan baa loo hurinayaa waysa soo taageero waxay yidhahdeen haddii la xukmaayo waxaan meesha ka qaadana ma badnaado cabashadu way badnay qadar dabadeed baa telefoon dura baan ka warna wixii laa ilaha illa allah tii waxaan doonayna laga doonayno nin kala wato sababta waxa weeyaan dariiqistaanu ku marayno iyose noolagu wanaajiyey wax maanta la tilmaami kara ma marka haddii ba nala odhan lahaa maanta maantii wax yar baa la weydiinay haddii maanta inta marka la dhabeelayahdo mar maysaane maxaa deedakii la qasha qashka keena kii maalintaa la weydiiyey mid ka sii badan dheer bela waxyaabaha diinadinkada leeyahay wanaageliya la qabtay intaas ka mid tahay marka anigu waxaan leeyahay de horta ninkii aan arkayno ilahay umuujin waa meeshii laakiin alxamdulilah dawladdaas ilaahay waxbay qabatay xawlay wax ku qabatay si fiican bay wax u qabatay imakana way wadaa maanta oo dambeysay baa dhegeysanaya idaacaddo waxaa leeyahay haddii la xukmaayo inaan anusarirta saman mukabaanku furo waxaa la yidhi qalabkii lagu sameynayay haddii la xukmaayo wadada udhaxaysa burcayo ceerigaabo jabuuti ay kasoo degeeno way soo socdaan ano habeenkii oo dhan dhameerodhaas calosha ku qanaa markii warkaa maqlaa hurdabay gudbaysay warsaa guud ceerkii wax badan iyo qeyshaa tahda iyo waxaa meesha ka muuqda macdaadki waa lasoo sida xalamay babar lagu soo qaadaya marka la maqlay hurdabay bay qaban waxyaaba wanaagsan ilahay loogu mahadno okay Said dadka Somaliland xukuumaddu waxyaabo dadka isku hadlayso waxaa ka mid ah jaaliyadaha qurbaha jooga in horumarka ay kala qayb galaan jaaliyadiina ku nool boqortooyada Sacuudi Arabia oo ku intareed ku leedahay horumarka Soomaaliya dalka jaaliyadda Sacuudi Arabia waa jaaliyad in badan jirtay oo muddo dheer jirtay ilaa haddaan idhaahdaba ilaa SNMT marka aan usoo noqdo mashaariicda intii dalka lasoo galay ay wax ka qabatay waa fara badan kuuriyada kamida kubriga buro dhakhtarka maandeedka kamida
maxay ahaytoy jaamacadaha ka mid a kuriga maxay ahaytoy hargeysa ka mid a biriijyada yani biriijyada bridge iyo kuriga waa isla kuriguna waa hargeysa bridgekuna waa yani waa jaamacadaha isbitaalada dhakhtar waxaas oo dhan waxbaan ku qabanay xitaa waxaa jirtay maraan dawooyinta majarmal u diraan u qaybinay maxay ahaytoy 6 gobol baan u qaybinay maxaa idinka qorshaysan xitaa waxaa jirtay shaqaaqadii ka dhacday maxay ahaytoy daroor biyihii samsamka halkaan wafti ka diray ilaa biyihii samsamkaan geynay oo markaasaa ilaahayba dadkii hadii alla ka dhigaayo isu sakira samsam baan ka waraabin marka wax badan baanu qabanay runtii marka xaqiiqada laga hadlaayo wax badan baanu qabanay imankana qaban doona insha allah bismillahi karim okay cabdi adin kusoo noqdo isla su-aashan baan si meel ku dhigaya somaliland waxay isku haleynaysa waxaa weeye dadka qurbaha dabadda ku nool xukuumaddan ka dhawaajisay in waxa lagala qabto dadka ogeeyaan wixii ay dhaamaan kusoo darsadaan idinka jaaliyadayaan maxaa idin qorshaysa waxaan qorshaysan in wax allaale wixii anaga nolol yimaadee daliilka salaxa ah daliilka ama wadooyinka ama adeekay danaha ay hadda xukumayo reer somaliland leeyahay inaan waxba ka harin in waliba karaakaysiin wixii uu qoqonay waqti okay said runtii jaaliyad waxaa sida ognahay waxaa dalkan ku nool jaaliyad aada u ballaaran waxaan ka mid tihiin guddida jaaliyadda dalkan kan ma moodaa jaaliyaddiinu inay tahay gaabis waxqabadkiinu yahay gaabis marka loo eego jaaliyadaha kale ku nool adduunyada anigu u fili maayo in jaaliyaddeedu gaabis tahay meeshani waa meel taariikhda somaliland ku sugtan sacuudi arabiya la yidhaahda waa wadankii dalka laga xoreeyey waa wadankii haddii alla ka dhigaayo odayaashii laga diray snm ku dhawaaqay haddadan lafteeda hawlo badan baanu haynaa waxa laa ciddii ka timaada dawladda had iyo jeer waanu martigelinaa waa u shir qabanaa waanu u waranaa iyana waa wareysanaa maxay ahaytoy waxa laala wixii dalka looga baahan yahayna wixii awoodayada waanu ka qabanaa haddana qorshayaal badan oo wadanka ka jira waanu ku jirnaa hawshoodii oo waa mahadyaala ka dhigaayo baaqan xukuumadda ka yimi uga horeysa waddadan ceeriga maxaad u tala gashay wuu socdaa hawsheedii guddiyaal ka shaqeynaya maxay ahaytay qoraal baan la sameynayaa dadku imanka dhowr boqol oo qof buu marayaa intay isqortay waktigii lagu dhawaaqi lahaa muddadii iyo meeshii lagu qaban lahaa loo shurka qaban lahaa ayaa dhawaan lagu dhawaaqi doonaa inkasta oo siira imanaya aan warkooda doonayno o sugayno waktiga ay imanayaan oo aan doonayno inaan isku beegno ma garanaysaa waktiga ay imanayaan iyo waktiga la qabanayo shirka marka way socotaa hawshaasi insha allah bismillahi kariimna guul baa laga gaari doonaa cabdi maxaad adigu jaaliyadda ugu baaqsaa dalkan inay baaqa xukuumadda ku taageeraan xawlna jaaliyaduna dad boqortay soomaaliya dadkaan waxa ku goobin lahaa waxaa leeyahay wixii dowladda arrimaheeda aasleeyada kale leeyahay inuu filo ka dhigo aan filin waayo maanta meel warar baa kor wixii maanta aynu diniida kale leeyahay ma karnaba dee lagu kala haraan ayaa lagu kala haray halla wax walba gacanta la saaro baada dowladda hala so wixii dowladda dowladda hadda dee xoogaa wixii dadka u haya dida qabanaya inay dadka waa laftooda kor qaadaan dadka dadka shacabka la soo xigalo arrimaha u sheegaan oo ay qabayaan bad baan doonayna okay sida waxaan marnaa runtii gabagabadii barnaamijka ugu dambeyntii su-aasha ugu dambaysa maxaad ugu baaqanaa jaaliyadda somaliland dalka ku dhaqan horumarka ay xukuumadda ka codsatay in wadooyinka dalka iyo horumarka soconaya ay ka qayb galaan maxaa jaaliyadda ugu baaqanahay maxaase gebiyahanba shacabka somaliland
jaaliyadan iyo jaaliyadaha kale ee ka dhisan reer Somaliland meel kasta baa joogeen ee dadka shacabka guddigoodba waxaan ugu baaqi lahaa in ay wadadaas waa waddo muhiima waa waddo haddii alla ka dhigaayo waa dal ka go-an dalka waana dal weyn oo ballaaran waxaan leeyahay wixii laba weji horta marka hore sadaqad jaariya weeye sida sharcigu sheegay oo waa wax kaa horeeya aakhira kaaga horeeya waxaad ka shaqaan marka xigana dee waa dalkeedii waanu wax ka qabanayno oo dhisanayno marka inkastoo waddooyin badan laga shaqeynayo haddana waddada ugu mudan weeye ee ugu muhiimsan marka waxaan leeyahay ugu baaqayaa dadka reer Somaliland meel kasta baa joogeen inay waddadaas awoodda saaraan oo ay u horaan wixii ay hayaan waddadaa haddaynu samaynana waxaynu Somaliland wax kasta waynu ka qabsan karnaa wax walba waynu ka qaban karnaa taana waa laynagu eegayaa ama caalamka kale inagu eegaya ama haddii alla ka dhigaya Soomaalida kale inagu eegaysa ama innaga lafteennaaba isku eegayna marka waxaan leeyahay waddadaas waa in awoodda la saaraa oo xoog la saaraa sidii aynu u samayn lahayn. Okay, Cabdi وقلتي قبل برنامج كاين مرة وطنبيتي كلمة هذا وقت بسيارة كسلام هاي حتى الشعب الصومالي اللي أنا وباقي هاي ما بس تشوفه شعب الصومالي اللي أنا بيجي يشوفه وعن قرنها موانتا قدرنا نريد الصومالي الآن هل كامل تنشوفنو أي منطقة دول داشتي لا يوجد هذا كياي حول بوضع حول هدي اللي كذا اسمه وضع حول هدي اللي كذا اللي هي قرن بوضع تذكر الصومال لو حنور الله مركز يشوفه اسكتير سنادي ولا نويه ولا قبش الصومال الآن أي اللي كباي أنا وحنا الله يديك ما تعدي اللي كذا اللي هي متى كان من الصومال الآن هدي اللي كذا اللي هي ملدي دي ولا جينا قريب كقاضي الله صون بس شو على سير وحلا الصومال طلعوا من هاي تهدي اللي كذا اللي هي يقولون كذا فدير من هاي تهدي اللي كذا اللي الصومال تقول وتقول ولا يجي لك حيبان من هاي إن يقولون مرها حوشة سيف يعني الله ولا مسلم هل سوسو ولا لماذا يكرر عنك اليوم وذيك أنتوا مثلا طاوض البرنامج كحوارنا أنا يدي كسرت بين ذلك بقرتوي للسعودية العربية أنه تضباط البقصو قارنو قارك من تاريخ الصوماليلاند أي تضباط محانو مرتها وسعيد كبر الديري أو أقويها للصوماليلاند وكل قندك بقرتوي للسعودية العربية iyo oday Cabdi Cali Madar oo isaguna ku dhaqan dalkan boqortooyada Sacuudiga Arabiya oo ah ganacsade dalka ka degan taawada barnaamijka waxaa idin socodsiinayay waa anigoo ah Mustafa Yuusuf Cabdi waa dhanka filim qaadista waa Liibaan Ibraahim waa dhanka farsamada waa Cabdirasaaq Saaqducaale intaanu barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo